waa ku dhawahay rasmi TV oo ku faraxsanahay inaan imaado oon safar dheer u soo galo waliba bad aan u soo maro aadaan ugu faraxsanahay aan walaal badan barto sida adigoo kale iyo waliba inta kula mid ah inaan barto aadaan ugu faraxsanahay ma sha Allah waa dhawahay wallahi kulli horta aniga waxaan ku dhashay degmada Waaberi waxaan dhashay 1969kii waqtigaas waxaan ahaa ubaxa kacanka October markaan soo barbaaray degmada Waaberi ubaxa kacanka ka noqday fan ubaxan ka soo bilaabay ubaxa kadib isla degmada Waaberi waxa asaastay fan waa markii aan adiga 15 iyo meelaha soo gaaray fan degmada Waaberi laga asaasay aniga waxa macallinkayga ahaa nin la yiraahdo Xuseen Siidow Faarax hadda jooga Muqdisho degan yahay Faarax Siidow Faarax taqaanin idinka Faarax Siidow Faarax walaalkiis waay Xuseen Siidow Faarax Allah asiga kaban asaa jilbaha ii saaray asaa ii bilaabay fanka meeshaas aan ka soo galay ilaa iyo heer aan gaaro inaan tiyaatar ka heeso dasan gaaray markaas yaani fankayga wuxuu ka soo bilaawday horta Banaadir kadib dagaaladii markay dhaceen haddana yaani fanki Banaadiriga baaba'ay waxa loo jalaacay dhinaca Soomaaliga loo jalaacay ilaa hadda Soomaaliga aan ku dhex jirnaa marka waxaan ka faa'iiday inaan noqdo abwaan Banaadiriga sameeya laakiin heesaha Soomaaliga iskuma fiicin inkastoo walow aan marmar iska sameeynahay laakiin haddana iskuma fiicin heesaha Banaadiriga aan u badanahay inaan badanaa sameeyo aan la xameeyo laakiin heesaha Soomaaliga laxankooda ku dheereeya ayaga wallahi maayiga waxaan igu soo kordheen markaan bay dhaba tagay aan soo asaasay kooxda Jannawkay markaan soo saaray waa aan heesahan maayiga inkastoo aan rabay inaan ku luqeyn haddana waa la igu qasbay inaan luqeeyo aan ku luqeeyo ana la xameeyay ana haddana ku luqeeyay heesayga maayiga yaani hal waa aragteenbo kuwa kale hadda yaani maskax kuma hayo laakiin hashaan caan noqotay oo shabeellada hoose iyo koonfur galbeed iyo ku shaacday waxa kamid ahaa yaani in aan degmada Marka aan ka soo saaro team faneed inaan ka soo saaro sidii aan Baydhabo u soo saaray inaan team degmada Baydhabo Marka aan u toobaro marka hadda waxa noo soo dhamaatay kaalintii koowaad oo go talentiga ahayd aan soo dhawaatay ama codkaaga tijaabi marka haduu Ilaahay raali ka noqdo 15 beri ka bacdi aan rabaa inaan ku soo laabto si aan caruurtii aan tababar u siiyo heesa loogu sameeyo ilaa ay lugahooda ay ka istaagaan inaan la joogo haduu aan yiraahdo waqtiga igu qaadato may marko dhowr jeer aan imid waxa degan dad aan walaalanahay degan aan ilma abtiilmeedanahay oo hadda marka ku caana idinka ba taqaaniin degan waa imaan jiray waqtigii siyaadna iska dhaafar waaydaan ba keeni jirnay laakiin burburkii kadib safar aan marna soo galnay oo ilaa iyo Janaal aan tagnay iyo safarkaan ay laba wallahi ma sha Allah waa magaalo aan ku qancay aan ku farxay kalsooni say gelisay nabadgelyadeeda yaani shacabkeeda say isugu duuban yihiin ما شاء الله الحمد لله يعني dhalinyaradeeda say u kaftamayaan ay socialka u yihiin ay reer magaalka u yihiin ما شاء الله الحمد لله aadaan ugu qancay waxa bay haysab inaan soo guura bay haysabo